Bismillah. Cashirkan waxaan ku baranaynaa qaabka keyboardka loo bedelo. Qaybta settings ay ku qoran tahay ayaa click siinaysaa settings meesha ku qoran tahay. Kadib page-kan ayaa ku soo baxaya. Page-kan marka qaybta journal ay ku qoran tahay ayaa click siinaysaa si aad u bedesho keyboardka macnaha luqadda markaas aad rabtid. Markaas siiso qaybta hoos ayaa u wadaysaa qaybta meesha ay keyboard ku qoran tahay. Date and time kay ka hooseysaa. Keyboard meesha ku qoran tahay ayaa click siinaysaa. Click ayaa siinaysaa. Waxaa maaragtay page-kan ayaa ku soo baxay. Marka qaybta kore meesha keyboards ay ku qoran tahay ayaa click siinaysaa. Aan hadda Swahili ayuu ugu aadan yahay. Swahili add new keyboard meesha ku qoran tahay ayaa click siinaysaa. Waa kana marka waa ku darsanaysaa. Add markii lagu dhahay waa ku darso luqadda rabtid. Marka waa kana intaas oo luqadood waaye. Mid aad markaas aad rabtid ayaa ku darsanaysaa. Si hadda markaa qoraal qoraysid qoraalka kuu saxmo. Qoraalkii maaragtay aad qoraysay wuu kuu saxmayaa. Laakiin haddii uu English kugu aadan yahay Soomaali inaad rabtid aad qortid English ayuu mar walba ku soo saarayaa. Marka hadhowdii markaad inaad rabtid inaad boobsiiso kale English ayuu maaragtay uu kuu qorayaa. Marka waxaa fiican mar walba inaad ku aadisato waddanka markaas aad rabtid luqadiisa in aad ku qorto. Marka saas ayaa loo sameeyaa.